subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah kowda bisha Agost sanadka 2020 saacada Afrikada Bari waa 6 barkii aroornimo Washington waa 12 barkii habeenimo idaacada saaki caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu afas dadkan adduunka dhan buu saameeyay qolobkooni uu u taabtay ma jiro hase yeeshee aad buu Soomaalida u saameeyay dad aad fara badan buuna ku dhacay marka loo eego marka iyaga intaan nahay sababay u keentay waxa weyn wayna ognahay Soomaalida waa reer fara badan family waa 8 qof ka Mareykanka badan waa 2 ama waa 3 ama waa 4 kaasi wuxuu ahaa Xasan Cali Cumar oo madax u ah jaaliyadda Soomaalida Columbus Ohio oo ka warramaya saameynta xanuunka COVID-19 ee bulshada Soomaalida deegaankaasi warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacadana ku maqli doontaan waxaa kamid ah sida looga ciido wadamada muslimiinta iyo kuwa ay degan yihiin ee caalamka iyo qodobo kale marka hore warkii caalamka waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan dawladda Mareykanka ayaa kordhisay cadaadiska dhaqaale ee ay la beegsanayso dawladda Shiinaha cadaadiskan ayaa ah mid ku aadan siyaasadda ay dawladda Shiinuhu kula dhaqmayso gobolka muslimiinta ee Xinjiang dawladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn saartay mid ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha badan ee Shiinaha ee ka howlgala gobolkaasi sidoo kale cunaqabatayntan ayaa saameynaysa laba ka mid ah saraakiisha dawladda Shiinaha oo lagu tilmaamay in ay si fool xun ugu xadgudbeen xuquuqda muslimiinta Uyghuriska ee dalka Shiinaha ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ciraaq Mustafa Al-Kazmi ayaa ku dhawaaqay in dalka Ciraaq laga qaban doono doorasho degdeg ah oo xilligeedii laga soo hormariyay ra'iisul wasaare Kazmi ayaa xilka la wareegay 2 bilood ka hor kadib markii dalka Ciraaq ay ka dhaceen barnaamijyo rabshado wata oo saameeyay nolosha dalkaasi Ciraaq doorashada guud ee dalka Ciraaq ayaa loo ballansanaa inay qabsanto bisha May ee sanadka 2022 laakiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in doorashada la soo dejin doono lana qaban doono bisha 6 ee sanadka soo socda ee 2021 mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkaasi noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington xanuunka COVID-19 ayaa sabab u noqday inay adkaatay in dad badan oo Soomaaliya oo ku cusub dalkan Mareykanka ama aan aqoonin luqadda ay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen adeegyadaas oo ay kamid yihiin turjumaada luqadda iyo caawinta dhinaca sharciga iyo wixii la mid ah Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya ururada u adeega jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa tilmaamay in uu cudurka COVID-19 caqabad ku noqday adeegyadii loo fidinayay jaaliyadda gaar ahaan dhinaca luqadaha iyo sharciga waxaa jira Soomaali ku cusub dalkan oo u baahan in waraaqaha iyo adeegyada kale laga caawiyo sidoo kale ururada u adeega bulshada ayaa dhinaca sharciga iyo qareenada ka caawiya bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka adeegyadaasi oo imika ciriiri badan la soo dirsay sida uu faahfaahinayo Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah hoggaanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio cudurkan waa doctor adduunka dhan buu saameeyay qolobkooni uu u taabtay ma jiro hase yeeshee aad buu Soomaalida u saameeyay dad aad fara badan buuna ku dhacay marka loo eego marka iyaga intaan nahay sababay u keentay waxa weyn wayna ognahay Soomaalida waa reer fara badan family waa 8 qof dadka Mareykanka badan waa 2 ama waa 3 ama waa 4 anaga marka hal qof markuu ku dhaco 10 qof buu ku dhacaya oo habihi la keenay ama habartii ama wiil dabadeedna caruurta dhan buu qaadaya marka cudurku aad iyo aad buu noo saameeyay dadku waxay imaan jireen xarumaha community-yada meelaha jaaliyadaha looga adeego marka qofka dib ku yimaado hadduu lawyer u baahan yahay haddii guri laga saaro haddii shaqo qofka laga eryo hadduu information u baahan yahay hase yeeshee xafiisyadii way xiran yihiin oo maadaama xafiisyada la xiray dadkii marka way saamaysay dadkiina awood uma lahan qaarkood inay isticmaalaan videoga ama maxaa leedahay telefishin lagu wada hadlahayo computer lagu wada hadlayo awood uma lahan annaga qodayadu waxaanu heli jiray sometimes support baan heli jiray oo dadka waanu la shaqayn jiray ayaga dadku wada shaqayn jiray marka saameyn weyn buu bulshada ku yeeshay haddii aan lahayd warkii la isu gudbin jiray haddii aan lahayd qofku wax loo qaban lahaa sometimes waxaa jira dadku waxay u baahan yihiin loo yaro waxaa jirta markii xadgudub yimaado dad loo yeero oo la yidhaahdo law maxaa court enforcement oo bilmatal guryaha haddii qofka laga sameyn waayo ama dib ku dhaco loo yeero kuma iman karaan marka dib aad fara badan buu saameeyey waxaa jira turjuwaanaa jiri jiray waagi horeeto face to face oo dadka micnaha hor fadhiista hadda ma jirto dadkii waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa computerka way jiraan kuwo weli shaqaynaya oo si xoog u shaqaynaya sida taleefanada oo kaleeto oo weli laakiin bulshadu wuu saameeyey cudurkan dhinac walba marka loo eego
luqadda ayaa inta badan caqabad ku ah dadka ku cusub dalkan iyo dadka waayeelka ah iyadoo iminka uu jiro culays la soo dirsay dadka xirfadda u leh turjumaannimada ee u adeega soomaalida u baahan in laga caawiyo luqadda gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo maxkamadaha iyo adeegyada ay dowladdu bixiso sida ay faahfaahinayso Sabaax Yuusuf oo ka mid ah turjumaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota. COVID-19 wuxuu saameyn ku sameeyay runtii turjumaanadu dhowr u kala qaybsamaan dadna waa dad in-house interpreting soo yidhaahdo kompaniyada ama isbitaalada u shaqeeya dadna waa dawladda kuwa ka yimaada ee iskood u shaqeysa independent contracting ku shaqeeya saameyn wuxuu ku yaalay in la xakameeyo ama si dawladda ka iman jirayay si loo yareeyo xanuunka faafinteeda ama in dadka kale patientada u turjumayso ama bukaanka aad u turjumayso in aanay waxba kaa qaadan adigii si loo xakameeyo ama loo yareeyo janska in la qaato sababteed ayaa loo joojiyey in dabadda ay ka yimaadaan turjumaanadu taasina waxay keentay in xaggii luqadda patientadu xaggii luqadda aysan sidii u dooni lahaayeen inay wax weydiiyaan su-aalo ama dhakhaatiirtooda ay u wareystaan aanay u samayn karaynin waayo waxaa lagu bedelay turjumaano dabadda ka iman jira kuwa taleefon lagaga hadlo ama VRI video remote interpreting wax labo computer ah ayuu qofku xagga kala fadhiisanaya qofkaasaa lagu xirayaa taasaa bedeshay turjumaanadii dabadda ka iman jiray qofku markuu video remote interpreting uu ku sameynayo videoga oo shaashada lagaga soo xidho qofka lagaga turjumayo waxay keentaa horta kow ismaqal la-aan isfahan la-aan iyo in adigoo qofkii la hadlaya ama serviceka u qabanayo telefonka go-aya ama connectionkaa go-aya telefonku waa sidoo kale qofkii xiriirkii baan sida marka qofka markaad wejigaaga horta aad u fadhido dee connection ma jiro go-aya ama telefonka ciddii laguma dhigayo ama waxaa laga yaabaa qofka xitaa lagu soo xiday luqadda inuusan si fiican u garanaynin hadhowto telefonka qofka wuu iska dhigayaa xagga kaleeto turjubaanka ahaa taasina markaa waxay dhib ugu keenaysaa qofkii sidii serviceka loogu qaban lahaa inaanu loogu qabanin ama ciddii lagu hadalkiisa oo laga dharjin ama dib uleynku go-o markuu go-ana haddana qof labaad haddana loo raadiyo oo qofkii qof aan ahayn haddana lagu xidho caqabadahaasi waxay ku keeneen in dadkii aanu sidii adeega loogu qaban kari lahay ee furfurnaanta ku jirtay su-aalaha qofku loogu jawaabi lahay xitaa wacyigelin baa la socon jirtay khatarku inuu uga sheekeeyo patientka waxyaabaha ka hortagaad samayn karto patient kasta iyo bukaan kastaaba midka kale lama mid aha oo mid waliba mid baa macaan qaba mid baan qabin mid baa dhiikar qaba mid baan qabin xanuuno underlying conditionska waxa la yidhaahdo ayuu qabaa marka patientku wuxuu la hadlayaa dhakhtarkiisii oo faahfaahin isagoo khaas u ah oo isagoo ku saabsan oo isagoo ka hortegi lahaa ayuu weydiinayaa ama loo samaynayaa ama loo qabanaya taasi meesha way ka baxday waayo aniga ku sheegayo laynkan markuu qofka lagu soo xidho uu go-o haddana mar labaad go-o su-aalaha qofkuuba maba ka jawaabayo ama maba weydiinayaba dhakhtarka sidii looga rabay taasna waxay ku keentay dayacaad meeshii ka baxday oo caafimaad ahaan sidii laga rabay in loogu adeego patientnada aan loogu adeegeyn cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dunida isagoo oo kalifay in uu isku socodka hakad ku yimaado iyadoo weli ilaa iyo iminka aan xal loo haynin cudurkaasi. mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay. muslimiinta degan dalka Australia waxa ay u ciideen siyaabo kala duwan sanadkan. dadka degan magaalooyinka qaar waxaa saarnaa xanibaad dhammaan masaajidada waa la xiray halka qaar kale ay salaadii soo tukadeen isla markaana ay u dabaaldegeen munaasabada Ciidul Adha. wariyaheena Ibrahim Bafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia. ciidan carafo ayaa Soomaalida reer Melbourne uga duwaneyd ciidihii kale ay u soo joogeen maadaama gobolkan Victoria xayiraad lagu soo rogay suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero. Cabdirashiid Axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa dareenkiisa ayuu VOA uga waramay. runtii ciidan Ibrahimow waxaad dareemaysaa in ciidu ay tahay muujin shacaa'irta Ilaahay subxaanahu wa tacaala takbiirta oo kor loo qaado dadka oo dhan oo isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada ilmaha oo macnaha dareenkaas ay dhammaantood wadaagaan ilmaha oo farxa oo cayaara xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta ay soo booqata
in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo, in lagu kor loo qaado magaca ilaahay oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar dadka oo dhan ay wada leeyihiin. jawiga noocaas iyo environmentiga noocaasa runtii ayaa ciidda sameeya. markiise ay noqoto in gurigaaga aad fadhiisato oo aadan masale iyo meel lasoo banaanka ah oo ciidda lagu tukanaya aanay jirin, waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho. laakiin gobolka galbeedka Australia ee magaalada Perth oo Soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda. dadka masaajidaasi ku soo dukaday waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Cabdiraxmaan oo degan magaalada Perth ayaa iiga waramay sida ay u ciideen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal Ibrahim waa ku salaamay. walaal waxa haddaan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada Perth ee galbeedka Australia. runtii waxaan soo xasuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray. waxaan ku dukaday masjidka Al-Furqaan. masjidkaasoo aan u dukanay 2 qaybood. qaybta hore oo dukatay 8 aroornimo, haddana qayb kale ayaa waxay dukatay 9. taasoo awal barnaamijka lagu dukan jiray, laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaana loo dukaday. Melbourne maadaama masaajidii aan loo dareerin, Soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen. Cabdirashiid ayaa mar kale iga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen. runtii waxaa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maaragtay masaajidadii masjidkii nabawiga ahaa iyo masaajidkii Makal Mukarrama ayaanu saarnay. waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufinka ha noqoto, maxaan ku yidhaahdaayey macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaragtay samaysanay, qaarna soo gadanay oon guriga keensanay ha noqoto, caruurtii oo iyagoo guriga gudihiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday, labiskiina qaatay. marka ciiddii waxaanu gurigayagaanu ku jilay. imaamyada masaajida Perth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku oranayeen istow wataqaarabu oo la mid ah isu dhowaada oo ha kala durkina, iyadoo tan iyo kolkii cudurkan COVID-19 adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan. waa kan mar kale Cabdulqaadir oo ka waramaya. waxa la yiraahdo social distance ma jirin wax afka la xiranayay. dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka wuxuu dhahay istow, kala fogaansho ma jirin. waana runtii dadka way salaamayeen wayna is-shuminayeen. sidaas ayaanu ku dukanay. Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee Luulyo, iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka COVID-19 iyo tirada dadka laga helaa ay sare u kacday, dhimashaduna ay badatay. halka gobolada kale ee dalkan Australia qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaangelin. waxaana dowladdu ay sheegtay in xayiraadan la qaadi doono 20 bishan aynu ku jirno Agost haddii xaaladdu ay ka soo roonaato. Ibrahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia. dhinaca kalena dalka Masar ayaa isna ka mid ah meelaha sanadkan laga dareemay munaasabada ciidda saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. sida dalkaasi looga ciiday iyo saameynta coronavirus waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da ee Qaahira Xuseen Saxnuuni. jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ay xaqiijisay in gabi ahaanba dabaaldegyada Ciidul Adha ee sanadkani in si weyn ay uga duwan tahay ciidihii sanadihii hore. qaar ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa ii sheegay in gabi ahaanba cudurka coronavirus si weyn uu u saameeyay farxadda ciidda, sida isku imaadyada dadka, gowraca udxiyada, ganacsiga iyo booqashada goobaha maalmaha ciidda waqtiga lagu qaato. magacaygu waa Cabdinaasir Furre ku nool Qaahira, Madiinada Masar, Xayal Caashir.
wallahi dareenku waa farxad iyo farxana la soo koobi karin alxamdulillah ma sha Allah bashbash iyo barwaaqo iyo ciid al-udxa inkastoo ciidan ay ka duwan tahay ciidihii hore sabab jira dartood iyo xanuunkan coronavirus-ka dartiis oo waxa weeye dadka gurihii lagu xaniman yahay oo gurihii lagu jiro oo stay home lagu jiro oo cid soo baxaysa jirin meelihii la isugu iman jiray iyo kulamadii aanay jirin salaadihii la oogayay iyo salaadii waxa weeye jamca loo oogayay aanay jirin gurigaaga la isaga tukanayo ifan xitaa salaad jimco aan la tukan wadankan Masar masaajidada ilaahay hadda aan la fasixin salaad jimco iyo aan lagu tukadan wali la fasixin sidaas daraadeed guryaha iyo qof walba gurigiisa ku tukanaya isbedel weyn baa muuqda oo ah xagga mujtamaca oo ay keenay xanuunkan corona daraadiis walaal magacaygu waa maxamed aadan gaas waxaana deganahay magaalada qaahira madiinada nasar xayal 10 baan deganahay wallahi wax badan baa la dareemayaa ciidii hore zaxmad bay lahaan jireen wax badan bay lahaan jireen ganacsigu wuu socday anaga hadda maqaaxida maanta ama taksiile baan hay maqaaxina way furan tahay labadaba meeloodba waxaan ka dareemayaa dhaqaala burbur hoose oo hooseeya ayaan ka dareemayaa ma garata isbedelka dhaca waxa weeye taksi oo kale wax dalbanaysa ama cid aad ka xaynaysa ma jirto maqaaxida cuntadii sidii loo gadan jiray looma gadanayo tagaway waa in yaro tagaway aan u qaadna ma inta kale si dad badan oo wax gadanaya ma jiraan aad iyo aad waa mahadsantahay walaal magacayga adiga iyo meesha aad degan tahay walaal magacayga waa cabdidani maxamed cabdi waxaan ku noolahay kana mid ahay dhalinyarada reer qaahiro runtii markii aan fiiriyo dareenkayga ku aadan isbedelka ciidihii hore iyo tan ama sanadkii hore iyo sanadka kan waxaa la dhihi karaa farqi aad u weyn baa jira ciidihii hore dabcan noloshu dabiici bay ahayd haddase waxaa moodaa noloshii inay ku soo aruurtay ama ay soo koobantay sida guud ahaanba muddo hadda aduu 4 ilaa 5 bil ku dhadhow maba la tukanba meel iskugu yimaadana ma jirto ciidaana saa ogtahay waxay kusoo beegantay jimco awalba jimcihii hore looma tukan jirin iska badaa ciid iyo isku imaantakeed magacayga horta waxaa la yidhaha qadar dheer aan ku magac dheerahay waxaan joogaa waddankan Masar muddo 13 sano ku noolaa isbedel weyn ba ka muuqda magaalada hadda maanta hadda kula hadlay waxaa ka nimid meelihii xadiiqooyinka carruurta rabnayna geeyno meel ma jirto meel furan meel waa xiran tahay fursad looma heli karaa maanta dadku xataa guriga iskuma soo booqdaan marka ciidan waa ciidii aan buligii ma arag ciid noocan soo martay guriga aad ku soo celinayso waxba aad ka qaban karin meel aad geey karin guriga banaanka waxay soo wareejin guriga geelo wax kale ma jiraan maalintii shalay gabi ahaanba fagaarayaasha waaweyn iyo masaajida dalkani laguma tukan salaada ciida iyo jimcaha taasoo ugu wacan xanibaadaha ay soo rogtay dowladda Masar inkastoo xukuumadda Qaahira qayb ahaan ay qaaday xanibaadaha lagu xakameynayo cudurka safmarka ah ee COVID-19 markana dhegeystayaal kusoo dhawaada faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka tan waa faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka dhawaan hadal uu ka jeediyay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo kulan lagaga hadlayay xorriyadda diinta oo lagu qabtay Iowa waxa uu ugu yeeray xorriyadda diinta xorriyadeennii ugu horeysay sida uu qabo dastuurka dalkan waxa uu intaasi raaciyay xushmada sareysa ee xuquuqda aan la loodin karin ayaa ah tan hagaysa maamulkeena xorriyadda diinta ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa soo wajahaysa qatar xoghaye Pompeo waxa uu tilmaamay in 5 qofba 4 ka mid ah dadka dunida ku nool aysan si buuxda ugu raaxaysan xorriyadda diinta si loo wanaajiyo xaaladda dadka doonaya inay si xor ah diintooda ugu dhaqmaan Mareykanku waxay adeegsanaysaa dhammaanba waxyaabaha arrintaasi wax laga qaban karo oo ay ka mid tahay in la magac dhabo wadamada ku xadgudba xuquuqdaasi aasaasiga ah We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs, its waxaan tilmaannay dagaalka uu Shiinuhu kula jiro diimaha iyo xabsi wadareedka loo geysanayo Uyghurska iyo tallaabada diin la'aanta ah ee ay ku amreen kaniisaduhu in ay weeraha ku xardhan ee kitaabka Bible-ka ku qoran lagu bedelo hadallada hogaamiyaha dalkaasi ee Xi Jinping dhammaan waxaasoo dhan waanu ka hadalnay fartana waa ku fiiqnay labadii sano ee la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku waxay qabatay 2 kulan oo heer wasiir ah si loo dardargeliyo xorriyadda diimaha waxaana hogaamiyayaasha diimaha ay iskaga kala yimaadeen dunida iyadoo ujeedkuna ahaa difaaca xuquuqda aasaasiga ah ee diinta Mareykanka waxaa si weyn uga go'an in ay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ee dadka dunida ku nool ee dhinaca diinta tani waa taariikh sharafeed fac weyn oo ay ka tageen awoowayaasheenii dhidibada u taagan Mareykanka
ku dhisay Mareykanka ballanqaadka ay ugu xaqiijinayaan dadka Mareykanka ah xuquuq lama taabtaan ah kuwaasoo hoosta lagaga xariiqay baaqi madax banaanida iyo dastuurka ayuu yiri xoghaye Pompeo. Waxa kale oo uu yiri xoghaye Mike Pompeo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waa in ay saldhig u noqotaa fahamkaasi adag isagoo intaasi ku daray ballantaasi adag waa tan naga dhigtay xidig xorriyadeed oo ka iftiimaysa dunida. Gurigeena siyaasadda dibadda waxaa laga dhisay dhagax adag oo sugan qodobadaasi aasaaska ah ee adag waxaa inooga tegay awoowayaasheenii dalkan aasaasay. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddii aad aragti ama talo ka dhiibanayso fadlan u soo dir xafiiska faallooyinka VOA Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade. wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Lyon ayaa iskaga hor yimid ciyaarta kama dambaysta ee koobka French Cup waxaana ciyaartaasi ay 90 daqiiqo iyo 30 lagu darayba ku soo gabagabowday eber iyo eber oo labada kooxood wax gool la iskama aanay dhalin rigooryaal loo dhigayna min shantii rigoore labada kooxood way dhaliyeen laakiin halkii dheeriga ahaa ayaa kooxda kubadda cagta ee Lyon iska qasaarisay koodii sidaasina 6 iyo 5 rigoorayaasha waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee PSG oo iyadoo ku guuleysanaysa koobka French Cup iyadoo kooxdu horey ugu guuleysatay horyaalka dalkaasi kadib markii loo hakiyay cudurka coronavirus dartiis taasina horyaalka wadanka ama xiriirka kubadda cagta wadanka Faransiisku ay go'aan ku gaareen in koobka la siiyo PSG maadaama dhibco badan ay hogaanka horyaalka ku hogaaminaysay. maantana wadanka Ingiriiska waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ku xafiiltamaya iyadoo labada kooxood ay halkaasi ku wada ciyaari doonaan ciyaarta kama dambaysta. kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo koobkan iyadu 13 mar qaaday ayaa waxa ay ciyaartani u tahay haddii ay ku guuleysatay ay uga qayb gali lahayd koobka qaaradda Yurub ee loo yaqaano Europa League. haddii si Arsenal laga badiyo kulanka ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa uu sanadkani noqon doonaa sanad aanay ka qayb galin koobka qaaradda Yurub oo in muddo ah kooxdu ay ka qayb galaysay tan iyo xilligii kooxdan uu majaraheeda macalinimada la wareegay tababare Arsene Wenger. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara ee Lacazette warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in sanadkani uu ahaa sanad cajiib oo aad u yaab badan taariikhdiisana aan soo marin. waxa uu xusay in coronavirus dartii koobka loo hakiyay isla markaasina macallimiintii kooxda isbedel lagu sameeyay unay amri la diray la keenay macalinka Arteta sidoo kalena xidigo da'yara lagu soo daray inay kooxda ka mid noqdaan. laakiinse waxa uu sheegay in kooxdu ay ku dadaali doonto sidii ay koobkan ugu guuleysan lahayd. macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard waxa uu sheegay inuu koobkan ku dadaalayo sidii ugu guuleysan lahaa isla markaasina kooxdiisu ay koobka u qaadi lahayd. ciyaaryahan Willian ayuu macalinku si weyn uga faallooday. waxa uu sheegay inuu ka mid yahay xidigaha ay kooxdu ku dhaarato isla markaasina aanu ka rajaynayn wax ka duwan ciyaarihii wanaagsanaa uu soo bandhigay kulamadii kan ka horreeyay. waxaana uu sheegay ciyaaryahankani inuu yahay mid ciyaaryahanimadiisu aad u sarreyso isla markaasina ka tagista laga yaabo xidigu inuu kooxda isaga tago aanay wax dhibaataha u keenaynin kulanka ay caawa kooxdu Arsenal la ciyaarayso. dhinaca wadanka Talyaanigana horyaalka Serie A ayaa la soo gabagabeynayaa maanta iyo barito kulamo doora ayaana kooxu iskaga hor imaanayaan. waxaa kooxda kubadda cagta ee Brescia ay kulanada la ciyaari doontaa Sampdoria AC Milan Cagliari ayay fooda isdari doonaan Inter iyo Atlanta. laba kooxood oo kaalimaha saddexaad iyo labaad ku kala jira ayaa iyaguna fooda isdari doona. kooxda kubadda cagta ee Juventus ay gurigeeda ku soo dhaweynayso Roma. Lazio iyo Napolina waxay ku kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Napoli gurigeeda. dhageystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe oo mascado idla sidaa.